Soomaaliya dadka Carabaha ku dhashay badanka sidii uu ka war heleen waxa way iskuulka adoo joogo oo lagu dhahayo lacag baa la ururinaya walaalahan oo baahan baa loo diraya walaalahaasina waa Soomaali sawir baa lagu sawiraya hay'ad imaatay oo lacag ururinayso oo walaalahaga oo xal mastuurka ku jiro oo qof sawirkiisa yani runtii aad يعني dhibaato ka muuqato lafihiisa la arki karo ba iskuulaha iyo TV-ga la saari jiray so association kaas wuxuu ka dhigay qofka inuu dhaho niyo Soomaalidaas maxay ahayd dhibaatadaas markasta la ka arkayo oo xumaantaas qodob waa taas qodob labaadna waalidka Ilaahay khayr siiyo boortu qof wax qaso riyaa Soomaaliya lagu geena waa lagu dhaha okay qofka wuxuu dhahay maya wax ma qasaayo tartiibtay soo wixii ahayd meel oo dadka lagu bajiyo koow labana wixii miidiyaha ka soo galo oo runtii wax fiicneen ahayn 2002 odaga aabo Soomaali buu socday waxa ku dhahay aabo Soomaali inuu ku raba ay dadka ina arkaa raba odaga wuxuu dhahay waa ku xina badalka aaday ila maanta wax xasuusta yani sawirkii maalintaas maskaxdayda ku soo dhacay fikirkay wuxuu ahaa waxa aadaya meel baadiye ah aqal Soomaali dadka degan baa u tagaa fikirkay saas buu ahaa boosaasaa ka degnay horta diyaarada ka soo baxay daaro iyo airport iyo magaalad waxa dhahay war abo uu qosli Soomaaliya joogtaa saasa mar labaad fiiriyay waxa arkay dadkoo dhan isku midab in yihiin waxa maya Imaaraad ma joogo hadii dadkoo dhan isku midab noqdeen Imaaraad ma joogo